waa yar yihiin xulalka kubadda cagta ee haysta xidiga muhiim ah sida Boortaqiiska oo kale waxa ay haystaan xidiga heer caalami ah oo ka ciyaari kara boos kasta oo garoonka ah inkastoo tani ay war wanaagsan u tahay taageerayaasha haddana waxay madaxweynuhu weyn ku reebaysaa tababaraha xulka qaranka qaar ka mid ah ciyaartooydan heerka sare ah waxa laga reebi doonaa listiga koobka adduunka ama kursiga kaydka ayaa la fariisin doonaa go'aankaasina ma aha mid sahlan gabi ahaanba haddaba booska ayuu tababare Roberto Martinez kala kulmi doonaa dhibaatada ugu weyn arrintaas ayaan halkan ku falanqeynaynaa maanta ee soo dhawow madaxanuunka ugu weyn waxa uu si cad uga imaan doonaa qadka dhexe Bruno Fernandes Fatinha iyo Joao Neves Boortaqiisku waxay haystaan saddex qad dhexe oo heer sare ah kuwaas oo xil ciyaareedkan kooxahooda si cajiib ugu ciyaaraya waxa la aaminsan yahay booskooda koobka adduunku waa hubanti laakiin wali waxa jira ciyaartooy kale oo heer sare ah oo ay tahay in la tixgeliyo la iskama idhatiri karo Bernardo Silva oo wali boos joogta ka haysta Manchester City waa ciyaaryahan ay tahay inuu boos uga ciyaaro koobka dunida ee xulka Boortaqiiska wada kastaba ha loo mare inkastoo Tottenham ay ku dhibaatonaysa kaalimaha ugu hooseeya ee horyaalka Ingiriiska haddana Joao Bellingham si fiican ayuu u ciyaarayaa waxaana la oran karaa waa kubadjoojiyaha qadka dhexe ee ugu fiican Boortaqiiska Ruben Neves isaguna inkastoo uu ka ciyaarayo horyaalka Sacuudiga haddana wali waa qad dhexe oo adag oo muhiim ah sidoo kale lama ilaawi karo Francisco Trincao oo muddo dheer si fiican ugu ciyaaraya Lisbon inkastoo mararka qaarkood uu garab ka ciyaaro haddana booskiisa ugu fiican waa lambarka 10aad ee qadka dhexe waa halis dhinaca gool dhalinta isla markaana waxa uu keeni karaa daqiiqado waaliya kulamada waaweyn hal abuurkiisana waxa cadeynaya inuu haatan hogaaminayo gool caawinta horyaalka Boortaqiiska ee xil ciyaareedkan tababaruhu ma kursiga kaydka ayuu dhigi doonaa ciyaaryahan noocaasa taasi waa go'aan culus waxa kale oo jira ciyaartooy kale sida Samu Costa Otavio iyo Renato Sanchez kuwaasi oo wali tartan ku jira xitaa Joao Carvalho oo aan wali si toos ah ugu safan xulka Boortaqiiska ayaa ku jira kaalinta labaad ee gool caawinta horyaalka Boortaqiiska taasoo ka dhigaysa mid mudan in la tixgeliyo sida daraadeedna waxaan xilli horeba magacaabay ilaa iyo 12 ciyaaryahan oo ku tartamaya kaliya 3 boos oo qadka dhexe ah xusuusnoona tani waa kaliya haddii Joao Felix aan loo isticmaalin lambarka 10aad marka laga hadlayo Joao Felix waxa la filayaa inuu ka ciyaari karo garabka bidix booskaasna aad ayuu ciriir u noqon doonaa markaasi waxa uu xilli ciyaareed cajiib la qaadanaya Al Nassr isagoo ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican horyaalka Sacuudiga sida daraadeedna waxa loo arki karaa inuu yahay mid ay tahay inuu boos ka helo safka koobaad laakiin tartan adag ayuu wajahaya Boortaqiisku waxay sidoo kale haystaan Rafael Leao go'ismadiisa awoodiisa kubad soo qaadashada iyo qaabka hal abuurkiisa waxay ka dhigayaan mid ka mid ah kuwa ugu cadcad ee garabkaasi laakiin sidoo kale la iskama indhatiri karo Pedro Neto oo isaguna leh xawaaro iyo cross cajiib ah iyadoo Cristiano Ronaldo la filayo inuu ka ciyaaro weerarka afka hore tababaruhu waxa uu dooran karaa in Neto uu ka ciyaarsiiyo garabka bidix halkii uu ka ciyaari lahaa garabka midig si uu uga faa'iideysto crossyadiisa waxa kale oo jira Pedro Gonçalves oo ka ciyaara gudaha Boortaqiiska kana qayb qaatay 16 gool 18 kulan oo horyaalka xil ciyaareedkan Sporting Lisbon taasoo iyaduna ah waxaan la iska indhatiri karin sidoo kale lama ilaawi karo Carlos Forbes kadib wixii uu ku sameeyay Barcelona Champions League qiimihiisa ayaana aad sare u kacay waxaana sidoo kale uu ciyaaray xulka Boortaqiiska isagoo oo muujiyay wax qabad fiican xitaa waxa uu keenay rigooro kulankiisii ugu horeeyay ee xulka qaranka isagoo ka caawiyay Boortaqiisku inuu xaqiijiyo soo bixitaankiisa koobka dunida xawaaraha iyo dhaqaaqiisa degdeg ah ayaana ka dhigay hub weerar oo muhiim ah xubno kale oo garabka bidixa ayay Boortaqiisku haystaan sida Ricardo Horta oo u ciyaara kooxda Braga ee horyaalka Boortaqiiska waxa uu si toos ah uga qayb qaatay 30 gool 43 kulan oo ciyaaray xil ciyaareedkan xitaa waxa uu ku jira kaalinta afraad ee goolinta horyaalka inkastoo uusan u ciyaarin mid ka mid ah saddexda kooxood ee ugu waaweyn dalka taas macnaheeduna waa in 6 ciyaaryahan ay ku tartami doonaan hal boos oo kaliya garabka midigna isna waa isla noocaasi oo kale ama waa uu ka sii adag yahay sababtoo ah boosaska kale ayaa aad u buuxsamay waan sharxi doonaa dabcan laakiin ka hor inta aynaan arrintaasi gelin haddii aadan weli ka mid noqon asxaabteenna waan ku soo dhaweynaya aan dib ugu laabanna falanqaynta Francisco Conceição waa inuu helaa boos joogta laakiin taasi waxay keeni kartaa in ciyaartooy kale loo wareejiyo boosas kale ciyaartooydaasi laga wareejiyay garabkaasna iyaguna waxay keeni doonaan madax xanuun cusub tusaale ahaan si loo sameeyo qad dhexe oo ka kooban Fatinha Joao Neves iyo Bruno Fernandes tababaruhu waxa uu wareejin karaa Bernardo Silva iyo Francisco Trincao garabka midig waxa sidoo kale halkaas la geyn karaa Pedro Neto oo isaguna boos loo raadinayo halkaasna garabka midig ayaa isaguna ciriirisi noqonaya dhanka kale tababaruhu waa inuu go'aan ka gaaraa ciyaartooyda daayirta sida daayirka la yiraahdo Rodrigo Moro iyo xidiga la yiraahdo Giovanni Quenda kuwaasi oo loo arka mustaqbalka Boortaqiiska laakiin wali khibrad uma haystaan tartamada waaweyn
ma la soo qaadan doonaa si loo siiyo daqiiqado yar oo kulamada waaweyn ah mise waa laga soo tagi doonaa ilaa ay khibrad helaan isla markaana ay ka xamili karaan cadaadiska tartamada waaweyn ee mustaqbalka. Tanina waa go'aan kale oo adag. Laakiin madaxxanuunada Roberto Martinez kuma eka halkaasi. Booska daafaca midig ayaa sidoo kale dhibaato weyn leh. Dhanka daafaca bidix doodi kama jirto oo Nuno Mendes ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo, laakiin yaa qaadanaya daafaca midig. Ma noqon doonaa Joao Cancelo oo si fiican u ciyaaraya tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay Barcelona mise Matheus Nunes oo qaab cajiib ugu ciyaaraya Manchester City tan iyo markii uu bedelay booskiisa qadka dhexe ayaa la qaadan doonaa. Waxa kale oo jira Diogo Dalot oo muhiim u ah Manchester United cusub ee uu hogaaminayo tababara Mikel Carrick. Dhanka kale Nelson Semedo isaguna si fiican ayuu ugu ciyaaraya Fenerbahce Turkiga. Intaasi waxaa dheer daayarka Thiago Santos isaguna si joogto ah ayuu ugu ciyaaraya Lille tan iyo markii uu ka soo laabtay dhaawac ACL bilowga xilciyaareedka. Sidoo kale Joao Mario oo u ciyaara Bologna isagana waa mudan yahay in la tixgeliyo. Sida aad arki kartana ciyaaryahan kaste waxa uu heli karaa wax loogu qiilsameeyo si loogu daro listiga. Yaa la reebi doonaa, taasina waa go'aan adag. Xitaa daafacyada dhexe waa laga yaabaa inaad aaminsan tahay inay sahlan tahay, laakiin sidaasi ma aha. Inkastoo halyayada Pepe iyo Danilo Pereira ay fariisteen, haddana xulashooyin badan ayaa wali jira. Ruben Dias waxa uu ka soo laabtay dhaawac isagoo si fiican haatan ugu ciyaaraya Manchester City. Sidoo kale Gonzalo Inacio isaguna waxa uu si fiican ugu ciyaaraya Sporting Lisbon xilciyaareedkan. Labadan ayaana la filayaa inay noqdaan mataanaha dhexe ee xulka Boortaqiiska koobka dunida, laakiin wali waxaa jira xulashooyin kale oo badan. Renato Fiega waxa uu si fiican ugu ciyaaraya Villarreal dalka Spain, halka Antonio Silva isaguna uu yahay daayar si fiican ugu ciyaaraya kooxda Benfica. Dherarkiisa iyo awoodiisa kubadaha jooga sare waa mid muhiim ah. Haddii tababaruhu uu doonayo daafac si fiican kubadda gadaal uga soo qaadi karana waa inuu tixgeliyaa xidig la yiraahdo Thomas Araujo oo isaguna doorasho muhiim ah. waxa kale oo jira xidiga kale oo daafaca oo kala jooga horyaalo kala duwan, dhammaantoodna ka ciyaar horyaalada waaweyn, waxaana la filayaa xitaa kuwa dhaawaca inay soo laabtaan koobka dunida cidii laga isticmaali kara iyaduna waa doorasho muhiim ah. xitaa booska goolhayaha isagana madax xanuun yar ka jira. Diego Costa way caddahay inuu noqon doono goolhayaha koobaad, laakiin labada goolhaye kale oo raaci doona ayaa su'aala. waxaana jira goolhayaal badan sida Jose Za, Roy Silva iyo Samuel Suarez iyo dabcan sidoo kale daayarka Joao Carvalho oo ah daayar dhawaan looga yeeray xulka qaranka. ma la soo qaadan doonaa si mustaqbalkiisa loo dhiso mise waa laga soo tagi doonaa? taasina waa su'aal kale. ugu dambeyntiina su'aasha ugu weyn waxay ku saabsan tahay weerarka afka hore. Cristiano Ronaldo waa kabtanka waana mid ka mid ah gooldhaliyaasha ugu waaweyn taariikhda kubadda cagta, laakiin hadda waxa uu gaaray da'da 41 sano, sida daraadeed arrintu ma aha mid sahlan. maxaa laga yeeli doonaa? ma lagu soo bilaabi doonaa kulan kaste mise daqiiqadihiisa waa la xadidi doonaa? go'aan kaste oo la gaaro haddii Boortaqiiska laga reebo tartanka waxay keeni kartaa dhaleecayn weyn, sida aan ku soo aragnay koobka adduun ee ugu dambeeyay. shaqada Roberto Martinez ma aha waqtigan mid sahlan oo qof kasta uu jeclaan lahaa. haddana waxaa la soo gaaray xilliga aragtidina aan arki lahayn kee ayuu idinla muuqdaa ciyaaryahanka ugu yaabka badan ee laga reebi doono xulka Boortaqiiska ee koobka dunida? kuwee ayaad soo aragtaa inay noqon doonaan line-upka xulka qaranka ee koobka dunida? ma soo malaynaysaa inay ku guuleysan karaan koobka adduunka markoodii ugu horeysay taariikhda sanadkan? qaybta commentiga nagula wadaag haddii aadan asxaabteena ka mid noqonna. soo dhawow, waad mahadsan tahay.